السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada meel walba dunida dacalada aad ka joogtaan in badan dunida casriga maanta aynu ku noolnahay waxaan maqalnaa wax la yiraahdo cunaqabatayn dawlad Hiblaayo ayaa dawlad Hiblaayo cunaqabatayn saartay Mareykan baa Iiraan cunaqabatayn saara reer Yurub baa cunaqabatayn saaraya Israa'iil baa Falastiin iyo reer Gaza cunaqabatayn ku haysa adabada wada waa hub nooce ah hubkan la yiraahdo cunaqabataynta oo inaan dunida inteeda kala aanan waxba kaaga imaanin adiguna aadan waxba u dhoofin oo dunida aadan waxba u bixin ma kula tahay hubka asaga inuu yahay hub wax xukumaada marka qaarna ka daranba in dagaal lagu soo qaado oo xambad lagu hayo waxaan isooran karnaa in badan in aad wax walba helayso waxa la waxaad u baahato ay magaaladaada ama wadankaaga ay soo galayaan dagaalna lagu hayo ayaa ka sahlan in cunaqabatayn lagu qabto oo wax soo galayo iyo wax ka soo baxayo aan jirin hadaba hubkan cunaqabataynta la yiraahdo waa hub wax gumaada runtii oo la oran karo hadii bini'aadanka uu isticmaalo ama dawladda ay u isticmaasho dawlad kale kuna guuleysatay dawladdaas ay wax walba ka celiso la oran karo dawladda cunaqabataynta lagu qabtay inay dhamaato ay ku dhowdahay hadaba cunaqabatayntan ma wax maanta soo bilowdayba mase waa wax weligeed jiray hadii aan dib ku celiyo taariikhda 1400 sano ka hor magaalada Makka suubanaheenu markii uu dacwada waday oo Quraysh ugu yeerayay diinta Islaamka waa tii nimankii Quraysh oo madaxweynta ahaa ay ka daaleen suubanaha inay wax walba u soo bandhigaan hadii uu rabo inuu adduunyo helo hadii uu rabo inuu dumar helo hadii uu rabo inuu madax noqdo waa kuwa ku yiri intaaba hadii aad rabto anaga ka dhigayno ee mar uuniyo ilaahadeena ka leexo aan dhagaxantan cabudina nooga leexo dadkeena waa weyn maangaabka aad ku sheegaysana waxa weeye ka joogso suubanuuna nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kii yiri markay adeerkii u tageen ay ku yiraahdeen wiilkaaga naga celi dadna Abu Talib wallahi hadda nabigu yiri waa reetulka waana ka sheeganayaane Maxamedow ma iska days waa kii suubanu ugu jawaabay adeerkii Abu Talib wallahi adeer hadii qoraxda soo qaadaan oo gacantayda bidix ay geliyaan dayaxana ay soo qaadaan oo gacantayda midig ay geliyaan si aan uga joogsado fariintan gudbinayo ma sameyn karayo Abu Talib markii uu arkay wiilkiisa go'aan adeegiisa ayuu waxa ku yiri wallahi inaanan cidna ku dhiibin cadowna aan ku gacan gelinaynin soco oo fariintaada gudbi cid aan ku dhiibayahay ma ay jirto cidna ku gacan gelin maayo inta kadib Quraysh waxa isku raacday oo go'aan ay ku gaareen in Muhammad iyo reer Bani Hashim oo idilba ay cunaqabatayn saaraan oo xaalad adag ay galshaan go'aanka asaga ayaa ay isugu yeereen waxa garwadeenka ahaa ninkii la oran jiray Abu Jahl oo u qaabilsanaa la dagaalanka muslimiinta iyo nabiga Quraysh inteeda kale ninka asaga daaru nadwa halkii la dhahayo odayaasha golaha u ahayd oo ku tashay jireen oo shirka ay ku qabsan jireen buu odayaasha isugu yeeray dhamaana waxa la qoray warqad dhambaal baa la qoray saxiifad waxana la yiri reer Bani Hashim waxna lagama iibsan karo ayaga ganacsatadooda waxba lagama iibsan karo lagamana guursan karo loomana guurin karo reer Bani Hashim iyo cidii u tagtaba wax allaale iyo wax aan u galaynahay ma ay jirto hal ogaado bayaan baa la soo saaray cunaqabataynta ayaa la saaray oo ay isku ballansatay Quraysh in waxa weeye sanadii 7aad ee bixsada nimanka ayaga muqaataca guud lagu sameeyo oo aanay waxba iyo waxa weeye wax loo galahay aanay jirin Abu Talib markii uu arkay halkay ay tagtay arintii Quraysh waxa uu sameeyay tolkiisi reer Bani Hashim waxa uu ku yiri nimanyahow xaaladu way adkaatay Maxamedna nimanka dilaan baan ka baqaynaa sida daraadeed waxaan aadaynaa halka loo yaqaano waadigii Bani Hashim togi Bani Hashim ayaan galeynaa dhamaana waa ay ku raaceen ilaa ninka la yiraahdo Abu Lahab mooyaan cadowga Ilaahay kaasi wuxuu yiri anagu shaqaydu kuma lihi Maxamedna dagaal baa naga dhaxeeya meel Maxamed aadayana anigu ma aadayo sida ayaanu kaga haray tolkiisii reer Bani Hashim oo Quraysh ayuu garabsi hadaba daawade muslimiintu sanadii 7aad ilaa sanadii 10aad 3 sano oo waxa ay galeen nolol cariiri ah iyo reer Bani Hashim oo dhanba gaalkooda iyo muslimkooda kii muslimana diinta iyo suubanaha ayaa u raacay kii kale gaalana waxa weeye xamiyo iyo ficiltan iyo ka dhiidhinayo in wiilkooda wax la yeelo ayaa uu halka u aaday hadaba daawada xaaladii ayaa aad u adkaatay reer Bani Hashim waxa ay galeen nolol aad u adag taasoo Quraysh ay maqashay caruurtooda qayladooda iyo sawaxankooda ayaa banaanka laga maqlay baahida iyo gaajada jirta darteed markii ay waayeen wax ka iibsado iyo suuq ay wax ka iibsadeen markii ay waayeen waxa la sheegaa in ninkii Abu Lahab uu ku yiri ganacsatadii Makka dhan reer Bani Hashim waxba ka iibinin asxaabu Muhammad hadii idin yimaadaanna ku qaaliyay raashinkii cuntada oo waxaad ku tiraahdaan raashinku waa inta ama gado ama isaga tag ninka muslimka uu iimaanaya magaalada soo lacag wata deedna markii uu suuqa yimaado waxba ma iibsan karayo oo markii wax iibsan maago xaaladda badeecadii ayaa lagu qaaliyeynaya deedna lacagtiisa waxba ma goyso caruurtiisii ayuu u laabanaya ayaga oo maartay yahay baahan ninka la yiraahdo Sa'ad ibn Abi Waqqas oo muslimiintii meesha gashay kamid ah ayaa wuxuu ka sheekay dhacdo xanuun badan oo meesha ku qabsatay wuxuu yiri baahi aad u daran ayaa ay qabatay deedna wax aan sameeyay ayaan garan waayay habeenada kamid ah ayaan xaajo u baxay oo yiri maraan kaadinayo ayaa waxaan maqlay warkaadidii oo shay culus
ku dhacayso shaygii baan soo qaaday wuu yiri markaan soo qaaday baa waxaan arkay inuu yahay saangeel ama neef geel waa hore la qalay jildigiisa maqaarkiisa markaasaan dhaqay buu yiri oo nadiifiyay markaan dhaqay oo nadiifiyana waan gubay buu yiri deedna waan cunay 3 habeen ayaana ku mooday oo gaajadii ayaan 3 habeen ku mooday hadaba daawadayaal muslimiintu xaaladda adag ayaa ay mareen oo reer Bani Hashim oo dhanba xaaladda adag ayaa ay mareen ilaa markii dambe nin la yiraahdo Hisham ibn Amr ayaa waxa uu yimid nin la yiraahdo Zuhair ibn Umayya oo hooyadii reer Bani Hashim ay ahayd deedna waxa uu yiri Hisham miyay ku raali gelinaysaa inaad waxna cunto waxna aad cabto oo maaragtay iska barwaaqaysnaato reer Bani Hashimna ay halka ku dhamaanayaan oo dadkii qaraabada ahaa reer Bani Hashim la oranayay halka ay ku dhamaadaan oo caruurtooda iyo dumarkooda qayladooda inuu halkan ka maqalno adiguna aad wax cunto waxna aad cabto miyaad ku faraxsantaa deedna ninkii Zuhair ibn Umayya wuxuu yiri wallahi nin kuma faraxsani laakiin maxaan samayn karayaa nin kaliya baan ahay deedna wuxuu yiri anaa kula jira aynu arinta ayada ka dhidhino warqada daalimada saxiifada oo kacbada lagu dhiciyo Quraysh isku dhaarsatay aynu burinayno way ku ballameen in ay inta ka badan ay raadiyaan deedna waxa ay heleen nin kale oo saddexaad kaasoo la yiraahdo Mut'im ibn Adi arintii bay u sheegeen asna uu la qaatay mid kale oo afaraad bay heleen nin la yiraahdo Abu al-Bakhtari mid sanaad bay heleen oo Aswad ibn Zam'a la yiraahdo ilaa 5 nin ayaa ay noqdeen waxana go'aan ku gaareen inay ka dhidhiyaan dulmiga lagu hayo reer Bani Hashim iyo dhibaatada halka iyo muqaatacada iyo cunaqabataynta lagu qabtay inay ka dhidhiyaan ay go'aan ku gaareen hadaba daawadayaal maalintii xigtay ayaa waxay yimaadeen golihii ay Quraysh ku shiraysay deedna ninkii la oran jiray Zuhair ibn Umayya ayaa ka dhax kacay oo arintii iclaamiyay oo yiri raali kama nihin in reer Bani Hashim halka ay ku dhamaadaan adinkuna Quraysh aad wax iska cuntaan oo aad iska cabtaan oo iska aroostaan oo aad faraxad halkan ku joogtaan reer Bani Hashim aad garanaysan halka Quraysh ka joogaana ee halka ay ku baabaayaan ninkii la dhihi jiray Abu Jahl ayaa kacay oo waxa uu ku yiri raali baynu ka noqonay reer Bani Hashim waxay ku jiraan inay ku jiraan naga raali ka noqonay warqad baan ku qornay waan isku wada dhaarsanay waana taa aynu kacbada ku dhijinay ninkii kale ayaa kacay oo Hisham ibn Amr ayaa yiri raali kama noqon adaan arinta garwadan ka ahaa waana warqad daalimad ah waan inay jeexantaa warqada ayada deedna kii saddexaad ayaa kacay oo ku raacay kii afaraad ayaa kacay oo ku raacay kii shanaad ayaa kacay oo ku raacay sida ay shantoodiiba ay ku raaceen in waxa weeye warqadaas la buriyay inay tahay daalimad ah waxa weeye warqada ayada la fujiyo ninka Abu Jahl aan aad u aqli badan buu ahaa markuu arkay in warkan la isku raacayo waxa uu yiri arintani waa arin habeen laga soo shaqeeyay waa arin amrun buyita bilaylin waa arin habeen laga soo shaqeeyay arin hadda sikidiisa ku timid ma ay aha daawadayaal Abu Talib oo markaa jooga kacbada ayaa maqlay arintii ayada deedna Quraysh ayaa u yimid wuxuu ku yiri Quraysh waxaad weydiisateen inaan Maxamed idinku soo wareejiyo deedna ha ay ku yiraahdeen waxa uu yiri Abu Talib waxaan maqlay Maxamed oo oranaya warqadii ayada ahayd waxa cuntay aboor ayaa cunay hadii uu Maxamed run sheegayo warqada ayada awalba daalimad bay ahayd hadii uu Maxamed been sheegana waad ku soo wareejinaya oo saaka ayaad ka takhalusaysan Maxamed Abu Talib waa ku kalsoon yahay wiilkiisa inuu san been sheegaynin sida daraadid ayaa uu ku yiri Maxamed hadii uu been sheego waad ku wareejinaya hadii uu run sheegana warqadaas awalba daalimad bay ahayd waadna nagu dulminaysan hadaba daawadayaal warqadii ayaa la soo aaday waxaana la arkay inuu aboor cunay ilaa magacii ilaahay halku kaga qoray maana warqad markii qorayeen ay waxay ku qoreen bismika allahumma ilaahay oo magacaaga ayaan ku qoraynaa intii yareedo magaca la ku qoraa mooy intii kale waxa cunay aboor ayaa cunay oo ka takhalusi waa hore marka warqadii ayay jeexeen sidii ayaan muslimiinta kaga soo bixin halka iyo togi Bani Hashim cunaqabataynta kaga bixin marka nafkan la yiraahdo cunaqabatayntu waa hub aad u adag walaalahan Gaza hadda 2007 ilaa maanta magaalada yar ee Gaza Muqdisho waxa ka weyn cunaqabatayn ayaa saaran waxna gali maayaan waxna ka bix maayaan waa la yaab inay noolyihiin alla xaqi umbay ka noolyihiin reer Falastiin walaalaheeni hadaba daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalka yar ee kooban aynu kaga hadlaynay cunaqabataynta ee dawladuhu is saaraan iyo dhibaatada ka dhalata haddii aad halkan soo gaartay waan ku mahad celinayaa daawashada muuqaalka daawatay subscribe saar saaxiibka u gudbi aad baad u mahadsantahay la soco muuqaalka xiga